Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan dib u bilaabo barnaamijyadii aan idinku soo jeedin jiray YouTube-ka. Waxaan ugu wacan oo muhiimka waxa waaye maadaama dhibaatooyinkii ay bateen, waxaa la yiri waari meesida war ha ka haro waxaa fiican oo noloshan ay ku jirtaa diintan ay ku jirtaa in la kala faa'iideysto oo wax la isku faa'iideey maxaa yeelay ilbaxnimada iyo dhibaatada waxaa looga bixi karaa. Ilbaxnimo waxay ku imaan kartaa dadkuna waxay kala faa'iideysan karaan markii ra'yiga fiican markuu qof ilaahay u soo dhiibo inuu sii fidiyo. taa koowaad ta labaadna dadkii ayaa waxay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda gudaha. Waxaa laga tagay waxyaabihii kale ee nolosha. Dadku siday siyaasad ku wadaan waxay u baahan yihiin caafimaad, waxay u baahan yihiin inay diintoodii si fiican u fahmaan, waxay u baahan yihiin inay hab nololeedka wanaagsan in la fahmo. Marka waxyaabo badan ayaa meesha jira. Waxaan rabaa barnaamijyada inaan kusoo qaato waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga iyo waxbarasho noocay noqoto iyo habka waxbarashada wadamada Yurub dhibaatooyinka imaan kara habka maxaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada wadankan haysta iyo wadamada Yurub iyo arrimo badan oo hore aan u bilownay. Marka laakiin waxaan rabaa maanta inaan ka horeysiiyo haddii aad dareentay dad badan oo waxaan arkay oo dhahaya waxaan dareemaa madax wareer ama madax xanuun, waxaan dareemaa korka iyo xanuuna anigoo dhaqaatiirtana ay wax jira ii sheegin ama problem. Waxaan dareemaa caajis iyo maaragtay waxyaabo badan oo aan daawo lahayn. Marka hore dadna waxay ku macneeyaan inay ay tahay wadamada aan joogno iyo problemkoodii iyo social problemka. taa waa dhici kartaa laakiin waxaan rabaa inaan meeshan ku soo koobo kadib markii daraasaad aan sameeyay waxyaabo badan aan ka akhriyay iyo waxyaabihii aniga aan maaragtay aan ka fahmay maadaama muddo aan ku noolaa wadankan inaan idin la qaybsado. waan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee keeni kara qofka inuu madax xanuun dareemo, madax wareer dareemo, caajis uu dareemo, lafa xanuun ama asagoo aan waxna yani physically wax problem haysanin markuu dhakhtar u tagana wadankan markii arrimahaas oo kale ay kugu dhacaan waxaa lagu leeyahay in aad biyo badan cabtid oo wax dhibaato ma jiraan ama alvadon ama panadol saa u taqaanid qaado. waa run maxaa yeelay waxyaabaha jirooyinkii iyo waxyaabaha hadda aad sheegtay symptomskan ma aha problem weyn oo maaragtay caafimaad ahaan wayna tahay. waxyaabaha keena waxaa ka mid ah waxyaaba aan anagoo dhaqan ahaan iyo wadankeena aan u haysanin inay dhibaato tahay. waxaa ka mid ah kadeedka ama stresska. qofka markii waxyaabo uu jecel yahay iyo uu filanayo uu waayo waxaa laga yaabaa inuu stress qaado. marka anigoo soo koobaya meeshan waxaan ku soo qaadan karaa haddii dhibaatooyinkaas aad dareentay ama aad tahay qof iska walwalsan aan ogeyn wixii ka maqan ama aad dareemaysid inuu madax ku wareerayo habeen walba ama uu xanuun ku haya meesha laga hayana aadan ogeyn ama aad dareentay in aadan happy ku ahayn markii lacag soo gashay ama wax walba lagu qabtay haddana waxyaabo dhowr ayaa keeni kara oo loo baahan yahay qofka inuu ogaado. waxaa ka mid ah waxa waaye wadanka aan ka nimiday habka uu sameysnaa mujtamaca guud ahaan matalan Soomaali haddaan nahay iyo wadamada aan nimiday wadamada Yurub farqi waxaa u dhexeeya intaasoo sano isbedelo badan aan meeshan dhacay. wadankeena waa wadan aad iyo aad dadku isugu dhow yihiin bulshada ahaan. waa wadan mar walba farxadeena ay ku xiran tahay dadka kale ama dariska iyo maaragtay walaalaha iyo asxaabta. qofkii Soomaaliga maaha qof keligii u bartay inuu noolaado u joogo. wuxuu bartay mar walba inuu dad la hadlo ama inuu asxaab la hadlo ama xataa iska hor imaadkii dagaalka waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka gelinaya maaragtay dadka qaarkood farxad gelinaya. marka meesha aan nimadna waa nolosha waxay u samaysan tahay nolol kelinimo ah. qofka waxaa loogu talagalay in uu ama laga dhaadhiciyo markuu yar yahay uu 18 sano gaaro inuu noloshiisa asiga keligii marka hadduu rabo inuu farxad raadsado asxaabta uu raadsado waxaa laga yaabaa inuu maalintii dhan gurigu qof walba uu gurigiisa uu ku xiran yahay ay ku farxsan yihiin. taa waxaa soo dheer kelinimada iyo anagoo baranay wadarta ama jamac. waxaa kaloo dheer jawigii oo aad u kala duwan maxaa yeelay meeshan waa meel aad u qabow badan maalintii ay yar tahay waqtiga winterka ah habeenkiina ay badan tahay ay dheer tahay. marka waxaa dhacaysa inta qoraxda ay kugu dhacayso inay aad u yar tahay
inta kalena ay tahay mugdi iyo cidla. marka qofkii ka yimid meel faraxsan oo mar walba inuu maqlaayo cod dad asxaab ah markuu soo galo maalin December ay tahay u yimaado wadan mugdi ah madow ah cid la hadlaysa aan jirin khayla aan jirin qaylada iyo heesaha waxay ugu talagaleen kalaabkana badanaaba Soomaalida ma aado marka waxa lagu kala degan yahay meel marka qofkii waxa laga yaabaa xitaa waxa habka ay u samaysan tahay maaragtay deganaanta ma aha mid sahal siin kara in banaanka la soo fadhiisto maxaa yeelay meesha aad bay u qowdahay barafaa dhacay marka waxa ku qasbantahay inaad guriga ku jirtid gurigiina cid kula degan male waa adigii familkaaga ma adi kaligaaga waxaa dhici karta in dadkii asxaabtii ay kala fog yihiin marka noloshii waa nolol loogu talagalay kalinimadii marka qofka un barin waxaa laga yaabaa inuu ka qaado inuu sidii noloshii u marayna in noqonin inuu dareemo stress uusan arkaynin talabaadna jawiga qabowga laftigiisa waxaa laga yaabaa inuu keeno stress kale oo aan la ogeyn iyo anagoo markaan Africa joognay vitamin D aan ka qaadin jirnay qoraxda ilayska qoraxda halkan ilayska qoraxda waa yar yahay daawooyin loogu talagalay qofka inuu kabneen ka dhigto waxaa loogu talagalay in waxyaabo kale uu sameeyo waxyaabihii oo dhan ayaa laga yaabaa in anaga habkii aan u raacin ilaa noloshaan ma aha nolol anaga aan u baranay laakiin ninka qofka Swedishka ama Norwegianka markiisa horeba waxa waaye waxaa loogu talagalay inuu telefishinka kala socdo habka nolosha jaraa'idka uu ka akhristo inuu vitaminada loo baahnaa uu qaato waxyaabahaas oo dhan ayaa marka anaga aan la'nahay waxaa laga yaabaa wixii stress inay nagu keento aanan ogeyn oo qofkii marka inuu isnaco ama uu dareemo madax wareer ama caajis tan kalena waxa waaye dareeraha jirkaaga galaya ama biyaha waa wax ka mid ah nolosha oo aad muhiim u ah marka anagana biyo waxaan cabnaa kaliya markuu haraad ama oon qabsado laakiin wadankan siduu haraad ama oon ku qabsado way adagtaa maxaa yeelay meesha waa qabow ma dareemaysid rabitaan biyo laakiin waa in waxa loo baahan yahay inaad ka dhigto mid joogta maalintiiba markii waqtiga la gaaro inaad biyo cabto jirkaaga inuu biyo nooc walba ah inuu galo taana waa naga maqan tahay waxaa laga yaabaa inuu ay nagu keento jirkii dhibaato ta saddexaad oo muhiim ah ayadana waxa waaye oo meesha ka maqan maalinta waxa waaye mugdiga iyo qabowga iyo aamusnaanta oo maaragtay isku tagtay waxay keeni kartaa in wixii ay noqdaan iyo tan kale oo ah habka nololeedka markuu ka yimaado nolol wax walba ay sahalsan tahay ay soconayso markuu soo galo meel nolosha loogu talagalay hab xirxiran qofkii waxaa laga yaabaa inuu ka qaado niyad jab maxaa yeelay Soomaaliya waxaa laga yaabaa markuu joogay taleefon inuu diro hebel uu diro in adeerkiisa uu diro wixii ay kala socdaan laakiin meesha waa meel nidaam way ku socoto oo aad iyo aad martay u kala xirxiran kaliya hab loogu talagalay loo maro shakhsiga Soomaaligan wuxuu u bartay in hab kala nooc ah oo weligiisa u mari jiray waxyaabihii oo dhan waxay ku noqonaysaa waxyaabo lama filaana marka waxay imaanaysaa in wixii asagoon ninkii xanuun qabin inuu ka qaado farxad daro maaragtay stress waxa la dhaho ama kadeed ama kadibna wixii ay noqdaan maaragtay madax wareer iyo jirooyin kale inay ku soo baxaan marka sidee looga bixi karaa waxa looga bixi karaa waxa waaye in qofka cuntada uu cunaayo inuu fiiriyo u doorto nooca ku habboon jawiga meesha iyo meesha la joogo anaga cuntada waxaan cunaa macaanka dhadhanka iyo nooca aan jecelnahay laakiin cuntada waxaa muhiim ah in loo cuno waxyaabaha ay ka kooban tahay hadduu yahay waxyaabo nafci leh oo meesha la joogo hadduu qaboob yahay waxyaabaha loo baahan yahay in la cuno meel kuleel markaad joogto waa gooni hilibka badan 24 saac mar walba la cunayo 3 jeer maalintii ma aha wax caafimaad qudaarta in la badsado cuntada nooca qaboob taa waa muhiim tan kalena waxa waaye dad badan oo siiba dumarka ay u badan yihiin ayaa markay wadanka soo galaan meesha qaboob ay tahay qof walba wuxuu jecel yahay meel mugda inuu galo meel diirimaad ah kadibna waxa ku qabanaysaa iska seexatid subaxdii waa soo toostay banaan uma bixin maalintii dhan waa joogtay jirkaaga dhaqdhaqaaq ma leh marka waxaa muhiim ah in ama qofka inuu gym tago gymnastic inuu sameeyo ama inuu kaligiisa socdo xataa qabow hadduu jiro maxaa yeelay jirka inuu kala baxo dhaqdhaqaaqa jirka waa muhiim tan kalena murugta iyo problemkaas qofka haya kadeedka waxaa kaloo loogu bixi karaa inuu qofka soo xasuusto ilaahay uu quraanka akhristo maxaa yeelay qofka markuu quraan akhristo waxaa laga yaabaa maskaxdiisii waana wax qasab ah maaha waxaa laga yaabaa inuu qofkii waxyaabihii oo dhan inuu ilaabo oo uu noqdo qof tamar fiican leh marka intaas aan maanta kusoo koobayaa barnaamijka kale wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada
iyo khilaafaadka u dhexeeya habka macallimiinta dadka wax u baraan wadamadeena Soomaaliya iyo wadamadan waxaa ku soo xigi doona habka shakhsiga iyo danaha maaragtay wadamada Yurub farqiga u dhexeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.